waxaa mamnuuca dharkaas iyo dharka kale oo ciidanka oo laftigiisu aan haysanin warqado iyo fasax lagu ogyahay meelaha ay ka shaqaynayaan dhammaan mas-uuliyiinta qaranka waxaan u samayn doonaa golaha wasiirada iyo golaha baarlamaanka iyo kasaraba ciidan gaara oo dowladdu ay samaysay waxaana la furi doonaa 48 saac xafiis ay ka diiwaan gashaan ilaaladooda looguna sameeyo aqoonsi gaara iyo dhar gaara kuwaas keliya ayaa socon kara wixii ka baxsan ciidamada howlgalka ku jira iyo wixii ka baxsan waxa saldhigyada ka shaqaynaya waa inay ahaadaan ciidan wata warqad aqoonsi dhammaan ciidamada kale ee ku howlan haddii aysan ka wadan madaxdooda warqad dhaqdhaqaaq iyo warqad fasaxa waxaa qaban doona sharciga sidoo kale waxaan mas-uuliyiinta ugu celinaynaa 48 saac registration in lagu sameeyo xafiis uu talisku magacaabi doono ilaaladooda khaaska ah aan kordhin doonana SPU waxa la yidhahdo ciidan special police oo la aasaasi doono qaybtii ugu horreysay inaan ayaga diiwaan gelin inta la samaynayana aan ayaga u samayno calaamado iyo dhar loogu talagalay mar labaad waxaan ka mahad celinayaa wada shaqaynta shacabka oo suurto gelisay waxyaaba badan oo xasilinta gobolka banaadir iyo dhammaan wada shaqaynta ciidanka amniga ay la sameeyeen aad iyo aad baa u mahadsantihiin